اللي برا صاحبك iyo maayarkiina ayaguna meesha nala joogan ay nagu soo ciidankii biliska ku soo weerareen halkaana waxay markiiba ku dileen nin askari oo ciidanka birmadka ahaa meel aan ka fogeyn ilaa 10 mitir jirtay arintaas siyaabo fara badan baa looga turjumay in waliba kaarku doonayo xoqday amba reer ha noqoto amba siyaasad ha noqoto arintaasina arin u taala siyaasiyiin iyo shicib midnaba ma aha arin u taala lamada ciidanka booliisku isagoo xoogan ayuu buurtii tagay goobihii wuxuu ku galay wixii dhacdada geystayna uu daba galay wuxuu ka soo qabtay dad iyo gaadiidba booliista ay haday military tahayba waxa lagala soo xiriiraya dadka ay khusaysiye heladu dhamaan labada ciidan haday military tahay iyo haday booliis tahay yaa laga deeday wax kale haday tahay aas iyo haday tahay xaq iyo haday tahay xiriirba waxa laga xiriiraya ay u taala arintaasi labada ciidan militariga iyo booliiska Rahmaan Rahiim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam waxaan maanta halkan ummadda Soomaaliland ugu soo gudbinaynaa warbixin yar oo kooban oo xaqiiqda ku salaysan oo ah dhacdadii shalay ka dhacday buuraha Naasa Hablood oo sababtay dhimasho iyo dhaawacba waxaanay dhacdada xaqiiqdeedu tahay shalay subaxii hore niman shiciba ilaa imka inta aanu ognahay ayaa soo weeraray niman deganaa halka dhulka Naasa Hablood oo markii dambe aan ogaanay inay ka tirsan yihiin ciidanka qaranka nimankaasi ciidankii halka deganaa nin way ka dileen ninna way ka dhaawaceen kadibna labada ciidanba way ku gurmadeen goobtii ay wax ka dhaceen goobtii markii la isugu tagay wajigii hore arintii la qiimeeyeen waxa la isla gartay in ciidankii qaranku ku noqday xiriiriisii hawsha iyo sugidii nabadgelyada ciidanka biliiska loo daayo sidaasana ciidankii biliisku kaga hawlgalay nimankii iyadoo nimankii baabuur ay wateen iyo laba nin laga qabtay oo goobtii aanu joogno siba anigu aan taagnahay goobtii ayaa nima baabuur shiciba wato oo tuutihiina gashan xilli bara saabka iyo maayarkiina ayaguna meesha nala joogan ay nagu soo ciidankii biliska ku soo weerareen halkaana waxay markiiba ku dileen nin askari oo ciidanka birmadka ahaa meel aan ka fogeyn ilaa 10 mitir jirtay laba kale way ku dhaawaceen kadibna qasab ay ku noqotay ciidankii biliska inuu isdifaaco muddo xabadii socotay natiijadiina waxay noqotay in ciidankii weerarka ahaa laga dilo laba lixna nolol lagu qabto iyo mid dhaawaca so far ilaa imka intaanu hayno labada dhintay ee ninka hore dhintay subaxii nimanka shicibkii ay dileen iyo ka dhaawacii ciidanka ay ahaayeen qaranka labada dambe dhintay iyo ka dhaawaca iyo lixda nolosha lagu hayaana markii imka baarisi la gudagalay waa ciidanka qaranka arintaas siyaabo fara badan baa looga turjumay in waliba kaarku doonayo xoqday amba reer ha noqoto amba siyaasad ha noqoto arintaasina arin u taala siyaasiyiin iyo shicib midnaba ma aha arin u taala lamada ciidan iyo qaranka markay waqtigeedii la gaarana dadka dhintay iyo dhaawacba ehelkoodii waxay la soo xiriiri doonaan talisada ciidanka iyo wasaaradda arrimaha gudaha arintaana cidii ka doonaysa muraad kale kuma jiro meesha yani kullu go'in waxaan uga baxayaa abaanduraha ciidanka qaranka oo isaguna kelmadiisa oran doona halkan waxaanu saakay isugu nimi inuu shir jaraa'id ku qabanayna taliska ciidanka booliiska aniga iyo abaandulaha ciidanka booliiska Sariye Guuta Cabdi Xasan oo hadda wada fadhino waxaanu ka hadlaynaa dhacdadii ka dhacday shalay subaxdii ilaa gelinkii dambe buuraha Naasa Hablood dhacdadaasi sida xaqiiqda ah haddaan uga hadalno ummadayada waxaan u soo gudbinaa sida xaqiiqda ah inaan uga hadalno dhacdadaas min subaxdii niman ciidanka ka tirsan qaranka oo sheeganaya dhul buuraha ay Naasa Hablood oo ku sugan buurta Naasa Hablood ayaa waxa soo weeraray niman shiciba dabeedna waxay ka dib u geysteen dhaawac iyo dhimasho halka hal qofna uu ku dhintay hal qofna uu dhaawac yahay oo ciidanka qaranka intaasi markay dhacday nimankii way firdhadeen ciidanka booliisku isagoo xoogan ayuu buurtii tagay
goobihiibu wuxuu ku galay wixii dhacdada geystayna uu daba galay wuxuu ka soo qabtay dad iyo gaadiidba oo hadda ay gacanta lagu hayo intii kalena waa lagu daba jiraa kadib intaasi markay dhacday labadeeda ciidan waan wada hadalay waxaanu ku tagnay ciidan xoogan ayay military ahaan u dirnay oo tiradiisu iyo hogaamo ciidanka qaran ka tirsan oo 3 hogaana iyo 60 askari oo ciidanka qaranka ah goobtii bay ugu tageen baanduulihii ciidanka booliska iyo ciidankii booliska ee goobta sugay ammaankana sugay dhacdada horena daba galay ka soo qabtay badheeryanaya ay tageen markii la wada hadlay waxa la go'aansaday goobta maadaama imika aanay waxba ka jirin in ammaankeeda labada ciidan aanay ka dhaxayn ee ay sugaan ciidanka booliisku ciidanka militariga ee gurmadka ku tagay ama amniga inay sugaan u tagay way ka soo noqdeen waxaan la isla gartay in xerooyinkoodii ku soo celino kadibna ciidankii booliisku isku weer buu ka qabtay buurihii iyo ammaankiina uu sugay iyadoo sidaas waxa soo weeraray ciidanka militariga niman ciidanka militariga ah oo dhulka buuraha sheegta meelo kamid ah kadibna ciidankii booliiska habay foodaystareen halkaana waxa ka dhacay khasaarahaasina wuxuu geystay 3 dhimasho ayuu geystay ciidanka booliiska ka tirsan iyo 2 ka tirsan ciidanka militariga labada weerar ee meesha ka dhacay waa kala duwan yihiin weerarka hore ee ka dhacay haddii aan kala qeexo weerarka hore ee ka dhacay halkaasi ee shicibku ay soo weerareen ciidanka ee lagu daba jiray badhna ka xidhan yihiin badhna gaadiid iyo dadba badhna lagu daba jiro kiiskaasi waxa loo raacayaa sidiisa dadna waa loo hayaa gaadiidna waa loo hayaa nimanka shicibka soo weeraray ee dilkiisa dhaawaca geystay kiiskan kale dhimashada iyo dhaawaca keenay hadday booliis tahay hadday military tahayba waxa lagala soo xiriirayaa dadka ay khusaysiye eheladu dhammaan labada ciidan hadday military tahay iyo hadday booliis tahay yaa laga dayday wax kale hadday tahay aas iyo hadday tahay xaq iyo hadday tahay xidhiidhba waxa lagala xiriirayaa ay u taala arintaasi labada ciidan militariga iyo booliiska wax kale oo ka jiraan arrimaha ma jiraan sidaasaanay ku afgo'an tahay wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum